habeen qabow ayaa nin bilyaneer ah waxa uu banaanka kula kulmay oday faqiir ah. wuxuu weydiiyey miyaanad qabow dareemayn markaad dibadda joogtid oo aanad wax jaakad ah xidhan. odayga ayaa ugu jawaabay ma haysto, laakiin taasi waan la qabsaday. bilyaneerkii ayaa ugu jawaabay isug gurigayga hadda ayaan galayaa oo jaakad baan kuu keenayaa. ninkii miskiinka ahaa aad ayuu u farxay oo yidhi waan ku sugi doonaa. bilyaneerkii ayaa galay gurigiisii oo uu ka mashquulay ilaaweyna ninkii miskiinka ahaa. subaxdii ayuu soo xasuustay odaygii miskiinka ahaa oo u soo baxay banaanka si uu u raadiyo miskiinkii, balse wuxuu helay isaga oo dhaxan daraaddiis u dhintay, balse waxa uu ka tegey qoraal. markii aanan haysan dhar aan xidhan waxaan lahaa awood aan kula dagaalamo qabowga, sababtoo ah waan la qabsaday. laakiin markii aad ii ballan qaaday in aad i caawinayso waxaan ku dhigay ballantaada, taasina waxay qaadatay awoodda aan iskaga caawinayay qabowga daran. bal u fiirso oo qisadaani maxaad ka fahantay adiga?